maareeyaha golaha murtida iyo madadaalada qaranka iyo mas'uuliyiinta hobalada qaranka ee Waaberi iyo qaybaha kala duwan ee bahda fanka Soomaaliyeed ayaa Muqdisho maanta si weyn ugu soo dhaweeyay fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi oo muddo dheer ku maqnaa dalka dibadiisa. Fanaanka ayaa tagay golaha murtida iyo madadaalada ee National Theatre halkaasi oo dib u dhis uu ka socdo, wuxuuna kormeeray sida ay hawshu u socoto. intaa kadib waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyay shahaado sharaf ay ugu talagaleen bahda fanka Soomaaliyeed, waxaana guddoonsiiyay Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo ah maareeyaha tiyaatarka qaranka. tiyaatarkii oo dhismo ku socdo waaye oo madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihi intuba ay dhisayaan iyo ummadii Soomaaliyeed maalin kasta wasaaradda ayaa halkaan timaada haddii alla ku roon yahay insha Allah mar dhowna waxaan rajaynaynaa sida uu ali jira asagoo u yaal inaan mar kale xaflad soo dhaweeyna kuugu sameeyno marka waa ku soo dhaweynaynaa maanta waxaan ku guddoonsiinay waa tiyaatarkii oo qurux badan. Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi oo kamid ah fanaaniinta Soomaalida ugu codka macaan ayaa sidoo kale qayb ka ahaa hobalada qaranka ee Waaberi, wuxuuna ka mahadceliyay soo dhaweyntiisa isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay dib ugu soo noqoshada Soomaaliya. Waa ku faraxsanahay soo dhawow qabso in maanta tiyaatarkii oo la dhisayo golaheennii murtida iyo madadaalada aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu si dhaqso ah noogu dhamaado. waa ku faraxsanahay aragtidiisii oo soo noqota sida hadda kuma soo meesha dadkii u dadaalo madaxweynuhu u horeeyana ilaahay maanta ka gaarsiiyo waa dhaqankeennii dhammaa waa Soomaalida dhaqankeedii anigana waa soo dhaweydeen haddaad fanaaniintiin waana idinku faraxsanahay haddaad madaxdii fanaaniinta ciyaartooy waa fanaaniin ciyaartooyda ayaga aabihiiba ayaga ciyaartu lambar 1 waaye ya aad iyo warbaahinta intaba iyo wariyaasha kulligii waa salaamaya waa ku faraxsanahay farxad weyn ay maanta ii tahay waa maalintan dhashay oo kale waa mahadsantihiin. Abdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho.